kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo joogtaan halkan waa radio Harwanaaga oo ka dhageysataan barta internetka ee harwanaagnews.com dhageystayaal sida aynu la wada soconno qaybtii koowaad ee wafdiga reer Somaliland ee ka qayb galaya shirka magaalada London lagu qabanayo kooxaha Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahayd ka anbabaxay magaalada Hargeysa qaybta labaad oo uu hogaamin doono madaxweynaha Somaliland ayaa la filayaa iyaguna in ay maalmaha soo socda ka anbabaxaan magaalada madaxda Somaliland ee Hargeysa haddaba qaar ka mid ah madax dhaqameedka beelaha Gabooye ayaa xukuumadda ku canaantay sida ay uga reebtay ergada ka qayb galaysa shirka London sanadintan oo u waramay Harwanaag News ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin tala kasta oo Somaliland loo goynayo in laga reebo waxay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ku canaanteen sida ay isaga indhamariso quwadda beelaha laga tirada badan yahay waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay boqor Axmed Iimaan Warsame waxaanu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliiman katiira ma ba'd magacaygu waxa la boqor Axmed Iimaan Warsame waxaan doonayaa in aan wax ka iraado ama ka hadlo shirkan loo baxayo wufuudda madaxweynaha iyo wafdigan balaaran ee London shirkan marka hore waan soo dhaweynaynaa in Somaliland ay ka qayb gasho oo ayaheedana ay halkaas iyo wixii ay qabto ay caalamka iskugu imanaya ay ka dhex dhiibato raygeeda iyo go'aansiyada Somaliland balse waxa nasiib darro ah dawladdan uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo aad moodid taladii dalka ama masayrkii dalka cid walba in ay wax ka weydiinayso ama ay ka soo qayb galinayso laakiin beelaha ayagan Gabooyaha wax ay ka siinayso taladaas ayna jirinba dhibaatooyinkan maanta ka taagan Somaliland gobolada waxa sababaya ama dhibtan u horseedaya waxa weeyaan talada aan cidna wax laga siinin marka madaxweynaha iyo dawladda iyo cidii kula taliysaba waxaan u sheeginaa wadankan taladiisa inaanu dadka aan wax ku leenahay wadankayga yahay cidna aanan uga dul qaadanayn ama aanan uga dul daba fadhiisanayn inaan talada dalka waxaan waanu cambaareenna dadkan isku tagay ee qabiilka lagu soo xulay ee qabiilkayga ka tagay cidii ka talisay soo xushay ee liiska soo sameeyay waanu cambaareenna waxaanu leenahay ma aha shir ama wafdi xalaala oo halka tagaya xaq baan u leenahay in maseerka ummadda ama dalka aan wax ku yeelano cid aan uga daba fadhiisanaana ma jirto jiritaanka Soomaaliya waa muqaddas laakiin Somaliland jiritaankeeda waa muqaddas gooniskutaankeedu waa muqaddas wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh imika waxaan ku soo dhaweynayaa suldaanka guud ee beesha Suldaan Iid Cabdullaahi Xirsi ku soo dhaw suldaan bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad sayyidina mawlana marka hore waxaan salaamayaa bahda saxaafadda salaam wanaagsan gudoomo baan leeyahay markii xigta magacayga waxa la Suldaan Cabdullaahi Xirsi boqorku ma u sheegay halkan waxaan doonaynaa inaan ka iftiimino ama aan ka bayaamino shirkan lagu qabanayo arliga Ingiriiska London oo ay u baxayso dawladdu iyo beelihii reer Somaliland xaq ma yeelan in beelaha laga takooro oo beelaha laga reebo dalka waanu u dhalanay xaq iyo xuquuq baan ku leenahay run iyo xaqiiqada dibadda dalka anaga loogu yimid shirkana waxaad moodaa in lagu soo saleeyay saaqiisan lagu sameeyo aynu maleynayna saaqiin lagu sameeyo sababtoo ah shirka laguma darin laguma xusin lama oran dalkay u dhasheen xuquuq iyo xaq bay dalka ku leeyihiin waxa ay la kacsan yihiin maanta gobolada bariga ama galbeedku waxa weeyaan xuquuqdii iyo taladii ay dalka ku lahaayeen oo cid waxba ka siineen annaguna la mid baanu nahay xuquuqdayadii iyo xaqayagii waa la duutiyay dawladda Axmed Maxamuud Siilaayo waxaad moodaa inay dadkayga ay ka xaragoonayso oo inaga dhigayso dad laajiyo dalka hadda soo galay dalka Somaliland galin waa loogu yimid dalka anaga loogu yimid
beelaha kale kuwii dibadda joogay waa lagu xusay waa lagu daray kuwii dalka gudihiisa joogay waa lagu daray waay maxay ku dhacaysaa waxaasi waxa weeyaan yani gooni shitaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland waa maqadis waanu ogolahay mana diidi karno waa dalkayagii waa inaanu dalkayga difaacno oo dalkayga u dhimanana diyaar baan u nahay midab takoor dambe oo dawladdu ay nagu samaysan diyaar ma nihin waxana lagu sheegaa minority manihin majority baan dadka anaga ugu badan dadka anaga u badan waa la sudoogi caalamka meelana ka degan ma jirto meelana ku noorin ma jirto meel walba waa deganay degmaan deganay tuulaan deganay Yurubtaan deganay meel walba deganay kuwaasina dhageystayaal waxay ahaayeen qaar kamid ah madax dhaqameedka beelaha Gabooye oo ka hadlayay sida ay u arkaan shirka magaalada London ka dhacaya oo laga reebay intaanu barnaamijkan mid labada ku kulmi doono waanigu aan jaadan cunay iyo dhamaanba akhyaarta radio Hadwanaag oo idinka tagaysa sidaas iyo nabadgelyo